أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنالك أداونيسان والكرم أوفيشيال فالله ناداتك عصبتها سبسكرايب حدات هرين ولو جوجتين لايك يشير انتا وحينو تايدير قلين ما انت وحن إذا سوقت بندونا قضوا كسابسا guurka caadi ahaan waa wax dabiici ah oo dhexmaraya nolosha oo dhan meel kastoo ay ku nool yihiin laakiin mararka qaarkood qofka waxaa la soo gudboonaada cabsi dhanka guurka taasi oo keenaysa qofku inuu ka baqo guurka waliba marka uu gaaro da'da guurka uuna helo qofta uu guursan lahaa waxaaba laga yaabaa in uu helay qof uu jecel yahay oo ku habboon guurka waxaa loo yaqaanaa cudurkan homophobia waa cudur dad badan ku dhaco qofku wuxuu gaaraa heer uu ka soo qaado guurka inuu yahay geeri oo kale baqidiisa meesha ay ka gaarsiisan tahay cudurka homophobia dad badan ayuu ku dhacaa ragga iyo dumarkaba cudurkan marka hore shaki ayuu ka soo bilaabmayaa ilaa uu gaaro heer qofka uu awoodi waayo inuu lamaane nolol la wadaago waxaa la ogaaday in uu ku badan yahay cudurka homophobia ragga uu ku yar yahay naagaha sababaha keena waxa ka mid ah qofka oo ah nin cabsi badan caadi ahaan marka maxaad u malaynaysaa qofka kale marka uu nolol la wadaago oo ay hal meel isla seexanayaan oo ay isdhexgalayaan taasi waxay keenaysaa in uu cabsi ka sii qaado xiriirka guurka waxaa kaloo keeni kara qofka markuu la kulmo noloshiisa xaalad xun ama dhacdo naxdin leh oo guurka xiriir la leh taas oo maskaxdiisa ku abuurmaynaysa in uu yahay guurka wax xun astaamaha lagu garto qofka hayo cudurka cabsida guurka waxaa ka mid ah qofka oo aanan lagu qaadi karin sheeko guur ama inuu diidayo marka ay u soo bandhigaan waalidkiisa inuu haweenay ama gabar guursado waxaaba laga yaabaa inuu dhib u geysto qofkii guur ku soo qaada waxaa dhici karta inuu dil u geysto marka cudurka guurka laga baqo waa cudur aad u daran wuxuu kaloo qofka ku abuurmayaa marka uu guursado inuu fashilmayo ragga qaar waxay ka baqaan habeenka aqalgalka inuu xaaska wax ka tari waayo taasi oo mararka qaar dhacdo waxaana sabab u ah cabsida iyo fikirka la xiriira guurka waxaa dhacday nin u dhashay dalka Estonia ayaa ahaa nin doob ah haweeney deriskiisa ah ayaa maalin kasta waxay dhihi jirtay goormaad guursanaysaa ninkii ayaa naagta cuqdad iyo nacayb u qaaday markii u dambeysayna wuu dilay daawada cudurka homophobia waa qofka in nafsi ahaan loo daaweeyo waxaana ugu fiican in qofka ilaahay diintiisa qabsado oo la yimaado iimaan xoog leh markaas wuxuu garan karaa nolosha adduunka waxay tahay erayada raadiska cabsida guurka cudurka homophobia cabsida habeenka aqalgalka والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أجمل المدارس فدمت خير غارس أزهو 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 وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر